Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Akhyaarta kusoo dhawaada channelka Caaqil Tech. Muuqaalkan maanta waxaan rabaa inaan isla dhisno marka team sectionkan aad u jeedaan anagoo isticmaali doono marka wax loo yaqaano Tailwind CSS. Waxaad tagtaa marka ugu horeyn website-ka ee leedahay marka Tailwind CSS. And then wuxuu ku keenayaa marka page noocan oo kale ah. Tailwind CSS waa framework oo CSS ah. Ugu horeyn marka waxaad tagtaa get startiga. Okay, qaabkaad u soo install garaysan kartid marka waa kana. Marka koowa npm-ka inid garayso. Okay, npm hadda waxaan sameynayaa marka inaan install gareeyo marka Tailwind-ka. And then waxaad sameysaa marka npx dheh Tailwind init sida configuration file-ka kuu create gareeyo. Waad aragtaan marka hadda wuxuu kusoo diray marka Tailwind config file-ka. And then waxaan u baahanaa marka halkan code inaan copysto. Okay, config fur marka waxaad ka bedeshaa halkan marka content. Wuxuu u sheegayaa marka fileska loo baahan yahay in oo lagu apply gareeyo ama uu fahmo inay Tailwind u baahan yihiin inay kasoo kici doonaan marka directory-ga loo yaqaano ama folder-ka loo yaqaano src-ga. src-ga filasha kasoo kacayo extensionadooda yihiin html ama js ah. Waxaad u fahantaa marka filal loogu baahan yahay in lagu loo isticmaalo marka Tailwind. waxaa sameysaa marka folderka loo yaqaano src-ga dhexdiisa waxaa loogu baahan yahay marka hadda installationka instructionkiisa raacno waxaa loogu baahan yahay wax loo yaqaano input css kuwaasoo marka la dhex dhigi doono marka Tailwind base-ka iyo Tailwind component iyo Tailwind utility dhexdiisa la dhex dhigi doono. Okay, src-ga dhexdiisa waxaa ku sameysaa marka input.css. waxaa u baahan tahay marka hadda inaad sameysid qaybta ugu dambeysay. waxaad sameyn kartaa inaad command-kan sidiisa aad u qaadatid aad run tirahdid iyo inaad u sameysatid marka controller yar oo markaad u baahan tahay aad wicisid bas si aanan u qorin marka halahan oo kale. waxaan sameynaynaa marka inaan build dhahno npm run build. oo build gareeyay marka hadda waxaad arki kartaa marka css-ka iska xirxir marka dhammaantood. waxaan leenahay marka src-ga dhexdiisa tag. waxaad ku sameysaa marka file la yiraahdo marka kaasoo ah marka output-ka disk output css. Okay, and then waxaan u baahanaa marka head. waxaa sameysaa marka class loo yaqaano text waxaa dhahaa blue oo 600 ah. font bold. Okay, code snippet ayaa jiro marka oo Tailwind-ka leeyahay oo aad ka heli karto marka Visual Studio kaasna soo degso si uu kuu caawiyo.
okay hadda waxyaabaha aan ka badalay marka ma uunan fahmin si uu u fahmo marka waxaa loo baahan yahay marka inaad tiraahdid npm si fiican aan u weyneeyo npm run watch okay mar walba oo aad update halkan ka samaysid wuu fiirinayaa waxyaabaha loo baahan yahay marka kusoo daray okay refresh waad aragtaa marka hello worldiga waa blue okay waxaad samaysaa marka section maxaa ku jira marka class oo ah marka bg blue 50 ah waxaad samaysaa marka min height screen waa full screen and then flex justify content item center okay u baahanaa marka body y oo 20 ah and then waxaad samaysaa marka div kaasoo ku jirta marka container mx ka waa auto margin x access ka waa macnaha and then waxaa samaysaa for okay waxaa samaysaa marka div oo h5 kaasoo ku qoran marka our team okay waxaad u samaysaa marka class text blue oo 600 ah center okay font bold okay waxaad samaysaa marka duplicate samee hka waxaa ka dhigtaa marka h1 text bluega laga reeb waa text 4xl sizekiisa ah margin top waa 2 midka kalena waa paragraph adhaada marka halkan biyo ka dhig margin topkiisu waa 4 textgiisu waa normalka caadiga ah kareeb boldiga waxaad ku dartaa marka lg width inuu yahay 1/3 md na waxa waaye widthkiisa screenka oo loo qaybay 2 md width aan ka wada macnaha sorry waxaa kaloo ku dartaa mx auto inuu yahay waad aragtaan waa center kadib waxaad samaysaa div
waxay leedahay marka margin oo top ah gaaraya marka 24 waxaa ku dhex jiro marka kaarka marka wuxuu leeyahay div class widthkiisu waa wuxuu gaarayaa marka 270 heightkiisu waa 330 pixel kalar yar oo ku fahmi karnaa u sameynaa marka saas ka dheh waad aragtaan wuxuu leeyahay marka rounded oo gaaraya marka 2xl pointerka hadaa kor saartid oo kale hoverka markuu sameynayo wuxuu ku sheegaa marka intuu pixel yahay waxaan u baahanaa marka inaan soo geliyo marka imageka maadaama internet aan ka keenay copy laleeyahay image address and then waxaad tiraahdaa marka image tag waad aragtaan halkan ayuu ku fadhiistay waxaan rabnaa marka inuu dhammaan kaarka oo idil qabsado waxaad sameysaa marka kaarka waxaad ka dhigtaa mid ah marka positionkiisa relative waxaan leeyahay marka positionkiisa waa relative akana waxaan u sameynayaa marka auto overflow waxaa ka dhigtaa marka hidden ah mid qarsan class samee class absolute waa top 0 lefty 0 width waa full height waa full heightku waa full object waa cover object center ka dhigaan dad so image facekiisa centerka u noqdo waad aragtaan and then waxaan u baahanaha marka inaan sameyno marka qaybtan xigta soo laabo marka halkan waxaad sameysaa marka div class wuxuu leeyahay marka padding oo gaaraya marka 4 padding 4 pg white y sheeg marka position waa absolute waxaan leeyahay marka intuu ka bilaabanaya marka left waa 4 and then waxaan leeyahay bottom oo ah isagana 4 waad aragtaan marka geed yaroo cadaan ah waxaan raacsiinayaa marka right oo 4 ah
right for okay waad aragtaan hadda waxaan kaloo u sameynayaa marka waxaan rabaa marka inuu waxyar geesaha rounded ka yeeshto rounded lg dhebo okay waxaa sameysaa marka magaca qofka tusaale ahaan waa Zara and then class ay leedahay text bold sorry font bold kala dhigo font waa bold text center okay another b kale waxaad tiraahdaa marka web developer okay boldiga ka dar waxaad tiraahdaa texti garay marka 500 okay waad aragtaa marka waxaan kaloo u baahanaa marka imageskan inaan soo geliyo marka imageka ugu horeeya image circle okay waxaa sameysaa class oo absolute ah okay absolute marka containerkan kore waxaa ka dhigtaa marka overflow hidden okay waad arki kartaa markaad dirtaan position absolute markaan dhaho kale top waxaa dhahdaa marka minus left oo ah marka gaaraya wax gaaraya waxaan leeyahay 10 bax waad aragtaan bottomne 10 kale oo minus ah okay imageka kala soo geli marka duplicate la samey kan waxaad tiraahdaa marka halkan labo afar waa kana asagane waan rabaa inaan right ka geeyo right ka gee halkan kalena waa top okay kan 4 ka dhig width waxaa sameysaa marka 9 gaare okay waa kana asagana okay designka kaarka marka sidaan ayaan ku dhameeyay waxaad u baahan tahay marka
inaad qabatido 4 mar. Okay, 2 3 4. Okay, kadib waxaan sameynaynaa waxaad tiraahdaa flax. Okay, gap of waxa u dhexeysa 4. Flax wrappable. Okay, justify content item center. Okay. waxaan u baahnaa marka inaan soo ka koobiyo marka imageskooda. waxaad tagtaa kaarka lamaad. Okay, weynee marka waad aragtaan qaabka u muuqda marka. Okay, kan waxaan u malaynayaa marka in wax yar ka qalday. waxaad tagtaa marka paragraafka. paragraph lg width. Okay, hadduu saxaya marka. Okay, waad aragtaan marka waxaan halkan ku dhameeyay marka team sectionkii. haddii aan fiiriyo marka responsive inuu yahay in kale. Okay, waad aragtaan small deviceska qaabkan ayuu u muuqanayaa marka.